ayaa wacnay shir saxaafadeedkan anagoo ah aqoonyahanka iyo waxgaradka beesha Warsangeli dadka degan gobolka Sanaag jooga magaalada Ceerigaabo waxaan maanta saxaafada ugu yeernay arrimo caam ah oo dadka guud ahaan ka dhaxeeya inaanu wax uun ka bayaamino oo ka cadayno arrimahaas waxa koobka amniga siyaasadda Soomaaliland oo bariyahan dambe dadku ay wax khalkhaldayaan marka arinta amniga xaqiiqadii gobolku uma baahna fadqalale iyo qalalaase gobolku uma baahna deganaanshiyo laan gobolku uma baahna wax dhibaato hadda u horseeda gobolku wuxuu u baahan yahay horumar wuxuu u baahan yahay nabadeyn wuxuu u baahan yahay taabagelinta dawladnimada wuxuu u baahan yahay in gobolku uu helo xuquuqiyaadka uu leeyahay dawladda cusub amniga aad bay u gelisay juhdi iyo dadaal in lagu garaysto mooyaan in la barbar yaaco ma ahan runtii dadku haday wax tabanayaan oo wax tirsanayaan inay u maraan nidaam qalina ba haboon qori waqtigiisa waa laga soo baxay korneyl caaro aan wulibana aad ugu mahadcelinayo inaan aqaan oo ciidanimadana aad ugu fiican oo aanu saaxiib nahay isaga laftigiisu waa nin 100% tanaasul badan aad hawshiisa dawladdu waxaan uga codsanayaa cidda ay qusayso saraakiisha ciidanka iyo wasiirka gaashaandhigga iyo madaxweynaha ciidanimada si fiican u yaqaan hawsha si degdega ha u qabteen caarana waa nin tanaasul badan oo wax badan qaata oo waxna maqla dawladda waa dawlad cusub oo ku degdegi meeyno mucaaridadeeda iyo maageeda iyo aflagaadadeeda dawladdu waa taageersanahay waa garab taaganahay wasiirka gaashaandhigga taageersanahay wasiirka arrimaha gudaha taageersanahay wasiirada oo dhan baan taageersanahay deegaanadeena koonfurta gobolka iyo bariga gobolku uma baahna khalkhal nabadgelyo darro beesha baxday cadaalad darrada ka cabatay waxa weeye waxa laga rabaa nabadgelyo dhulka maxas iyo maato iyo reermi iyo dhibaatooyin badan baa ka jirtay uma baahna inay khalkhal iyo barakac la geliyo tan siyaasadda iyadana waxa weeye cid baa inoo ka wakiila oo dadku waa qabaa'il walba yaani cid baa uga wakiila heer gobol cid baa uga wakiila heer degmada cid baa uga wakiila marka waxaan leenahay hal lagu kala xishoodo hal loo kala dambeeyo hal la isku tixgeliyo Soomaalidu waxay tiraahdaa nabad baa naas la nuugule marka nabadgelyada gobolku in la ilaaliyo si wada jira loo ilaaliyo waa muqaddis xagga siyaasadda annagu marka aanu nahay beesha Warsangeli ma naqaan siyaasadaha kan la iska daba wareego xeer baanu kala yanahay cidda ka bireedka noogu jirta oo noo matasha dawladda ayaa siyaasadda beeshana wakiil uga ah hadal ku weydeen xabad ku helimaysan waxaan u baaqayaa walaalahay beesha Habar Yoonis ee halka tagtay ee jabhadeynaysa inay joojiso si fiicanna u garnaqsato